جيل كان فيه سمونا كانت به أمجاد. intaana diinta islaamka soo gelin waxaan guursaday nin Marooka ka yimid. Waxaan jiray 20 sano. Labadeena waan isjecleen. Asaga ma haysan wax diin ah, isla markaana ma doonayn inuu qayb ka ahaado. Waxaan xaqiiqsaday in uu marnaba doonayn inuu islaamka wax ka ogaado. waxay guursatay intaynan islaamin ka hor, laakiin guurkeeda ma ahan mid sii jiray. markeedii ugu horeysay qur-aanka ayay aragtay wayna aqoonsatay. Markii ugu muhiimsaneyd noloshayda ayaan fikiray. Waan yaraa xilligaas, isla markiina waa lii furay. Waxaan galay internetka si aan dad badan ugala hadlo oo saaxiibo badan ugu yeeshto ICQ-ga. Waan ka fiiriyay dad badan meesha kuma jirin waqtigaas. Taasina waxay ahayd wadada ugu habbooneyd si aan u bedelo dadkayga iyo dhammaan dunida oo wax walba ula wadaago. Mar waxaa hadlay iyadoo xilli habeen ay tahay dad meelo kala duwan oo dunida ah jooga internetka gudihiisa. Wiil yar ayaa igu dhahay, quraanka ma akhrin kartaa? Waan fikiray, waxaan u arkay su'aal xun. Isaga wuxuu rabay inaan quraanka akhriyo. Aniga waxaan u arkay buug hore oo qurmay inuu yahay. Sidaa darteed waan challenge gareeyay ilaa asagoo ii sheego in quraanka uu yahay kitaabka ugu wanaagsan uuna yahay xalka dunida. Xilligaa kadib baaritaankayga diimaha ayaan bilaabay. Una ii dhammaaday hal diin oo xiiso gelisa maan arag. Waxaan isweydiiyey maxaa diinta islaamka u bara weyday. waxay ahayd caqabad ay qaadatay Lina si ay u soo bandhigto qaladaadka islaamka. taasina waxay ahayd bilowga hanuunkeeda. baxdiga ay samaysay wuu saameeyay. Waxaan go'aansaday in islaamka si wanaagsan u barto si aan qaladaad uga soo saaro. Waxbaa qoray oo waan u diray asaga. Waxaan ku dhahay ka waran waxaan soo qoray ilaahaaga halkuu joogaa. Laakiin ma aanan helin hal qalad ah oo quraanka ku saabsan. Ilaahay ayaa mahad iska leh. Intaan akhrinayay aayad suuratu Ibraahim ku jirta ayaa waxa ay iga dhigtay inaan rumeeyo jiritaanka Ilaahay. Waxaana i gashay cabsida naarta. maalinta qiyaamaha dhammaan makhluuqaadka waa loo yeeri doonaa, waxaana lagu dhihi doonaa waa leegu aaminin dhammaan daalim kastoo madax adag. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Waan xanaaqay. Waxaan dareemay in noloshayda aan dhibsanayo si saa'id ah. Waan gilgilay intaan akhrinayay aayadan. Sidaa darteed waan fahmay aayadda. Naartana waan rumaystay. Hadda Ilaahay waan rumaysanahay. Waxaan u baahanahay inaan sii wado islaamka barashadiisa. Waan ogahay ninkaasi wuxuu rabay inuu dacwada igu guto. Waxaa ku dhacay dabin wanaagsan. Alxamdulillaah. Isaga wuxuu rabay inuu islaamka igu casuumo. Waxaan caddeynayaa inaan maanta waddo sax ah ku taaganahay. Ilaahay waa run. Alxamdulillaah.